tuulada xarka dheere waa tuulooyinka dhawaan la asaasay intii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay ayaa tuulooyin badan laga asaasay deegaankani gobolka Sanaag. tuuladan xarka dheere haatan waxay sanadkii 17aad haddaba bulshada ku nool tuuladaasi xarka dheere ayaa maanta waxay dhagax dhigteen MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee tuuladaasi ay yeelan doonto waxaana dhagax dhigay waxgaradka iyo maayirka magaaladaasi xarka dheere waxayna jaaliyadaha dalka dabadiisa ee deegaankani gobolka Sanaag iyo waliba hay'adaha maxalliga iyo maamuladaba ay ka codsadeen inay kala qayb qaataan MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ee galabta laga dhagax dhigay tuulada xarka dheere. ayaan doonaynaa inay ka soo qayb qaataan sidaan hore u yidhi hay'adaha caalamiga maamulka jaaliyadaha dhammaantood dadweynaha kaleeto annaga awoodayadii waxa weeye dhowr dhagax oo halkaa iska ah community-giyaga waxaanu dhagax dhignay MCH iyadoo aan tuulada xarka dheere MCH aanay hore u lahayn iyadoo tuulada xarka dheere ay tahay dadkii abaarihii soo barakacay ay degan yihiin oo danyarta waxaan soo dhaweynayaa maamulada hay'adaha kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga intaba inay nagala qayb qaataan oo naga qabyo tiraanin baan doonaynaa awoodayadii annaga waxay noqotay sida aad u jeedaan lurarka yar oo dhaxa iyo niistaasay noqotay kamana sii gaari doono insha Allah wixii kale in la kala qabto SMH-ka aanu hindisnay oo aanu isnaa waxaad ka samaysaan SMH-ka sameeyay baadina waxaan rabnaa in la ku caawimo dadka gobol Sanaag u dhashay waxaan raadayay hay'adaha caalamiga waxaan raadayay dadka islaamka oo soo baxsanaya waxaan raadayay in loo kala soo qayb galo baan rabnaa oo nala caawiyo oo aan noo caawino dadka yimaada meesha deegaan waxa weey dad reer miyiga oo reer miyiga soo xawli ka soo dhamaadeen oo maxaan ku raadayay hanti fiican aan lahayn oo maxaan ku raadayay goob caafimaad sameeyay oo maxaan ku raadayay ana reer miyiga isaga xiran oo masaakiina weeye marka waxaan rabnaa hooyooyinkii joogay xarka dheere gobol Sanaag degmada Barameed xogto waxaan anagu goob caafimaad malihiin joojin ma helo maxaan ku raahday mid awood u dhacday wax soo qaado ma helo maxaan ku raahday anagu waxaan rabnaa goob caafimaad MCH in anagu waa hindisnay inaanu isku dayno oo wax ka qabsan karno haddana wali way naga soo curyaansan tahay waxaan u bandhigaynaa hay'adaha maamulada islaamka jahliyadaha kuwa ka dhashay oo goobta ku sugan xarka haweenka tuulada xarka dheere ayaa iyaguna dhankooda waxay mar labaad ay dhagax dhigteen gurigii ummadda ama guriga haweenka ee tuuladaasi xarka dheere ay yeelan doonto iyadana waxay ugu baaqeen in ciddii danaynaysa iyo jaaliyadaha iyo hay'adahaba inay isna ka soo qayb qaataan dhismihiisa. tuulada xarka dheere ma lahayn 17 sano ee ay jirtay waxyaabaha asaasiga ah nolosha bini'aadanka sida MCH-ka iyo aniga oo ka hadlaya haweenka marka gurigaas wuxuu ku magacaaban yahay guriga haweenka niyadiisuna waa guriga ummadda magaciisu marka waxaan doonaynaa guriga wixii islaama iyo hay'adaha iyo jahliidaha iyo maxay ahayto dadkan degan madaqada intuba inay wax nagala qabtaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شينة صلاة دوحير وحو كمد يحي وحقرتك كنول ديغان كان يقول كان سناغ مقالة حركة ديرة وحونا مركاسي وقوم قيب الشدة حركة ديرة إنا يسمى اسكوتشي أي وحكوة قبصدان مركا أي وح قبصدان أي وحلو كورنكرا أي بالشدة كل الدرمي إلهي عيد وحال عليه الكستويتان إله باله لكن وهو كلا ديري dadka lagu kala dheeray wal bixiid oo joogo buu xumaa ciidda ay joogto waxa la rabaa nin walba inuu kaga taliyo wanaag iyo horumar iyo sidii u horumari lahayd talabaad magaalada xarka dheere waxa looga baahan yahay inay isku tashato oo sidii ay wax u qabto
qabsan kartoba ay isku tashato oo muslimka aynu baryayno u baaqayno oo hadday tahay hay'adaha iyo hadday tahay maamulada iyo hadday tahay tolkeena kale oo dalka ku jira iyo hadday tahay jaariyadaha dibadda intaba aynu leenahay naga soo caawinaysa tuulada xarka dheere ma lahayn 17 sano ay jirtay waxyaabaha asaasiga ah nolosha bilaadanka sida MCH-ka iyo hooyada dhallaanka iskuulka caruurta wax ku bartaan oo loo maqsina oo aad ugu dayacan iyo waliba waxyaabo fara badan ay ka mid tahay arrimaha bulshada وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي Somali News TV دقمة علبه إيه قبل كسناك